oo ku jireen ognahay haday qadaru timaadna dad ku sabraanahay hadii naxawahay oo nool yahana inaan aragno aan ku faraxno aan naxawahay aan ogaanan rabnaa kani waa bartaan ku leenahay YouTube-ka ee nuxurka wararka qodobada caawa barnaamijkan aan idinku soo gudbinaya isla markaana aad ku daawan doontaan qiyaari waxa ka mid noqonaya xog xasaasi ah oo laga helay geerida Sheekh Macabe ehelkiisa ayaa afka furtay xaasaskiisa wali asay ma qaadin dawladuna warkiisa hoos ayay u dhigtay xog arinkan la xiriirta ayaan barnaamijkan kugu soo gudbinaya iyo caruurtiisa oo afka furatay xildhibaano ayaa lagu dilay qarax ka dhacay galgaduud kadib markii gacanta lagu dhigay deegaan muhiim u ahaa al-shabaab waxa kale oo barnaamijkeedu kugu soo gudbin doonaa ciidanka dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo shacab oo la wareegay deegaano cusub oo shabaabka laga eriyay soo dhawaada qodobadaas ayaan isdul istaagaynaa daawadayaal iyo hadba wixii nagu soo kordha haddii aad nagu cusubtaa nagu soo biir like-tu muhiim ayay u tahay muuqaalkan ehelka allaha u raxmadee taliyihii guutada 26aad waa 25aad ciidamada xoogga dalka Cumar bin Khadaab Mukhtaar Xasan Tifo Sheekh Macabe ayaa warbaahinta kula hadlay Muqdisho ehelku waxa ay sheegeen ilaa iyo hadda inaysan haynin war cad oo ay ku qancaan oo la xiriira geerida taliye Sheekh Macabe taas oo daaran nolol iyo geeri midda ay hadda filan karayaan ama ay tuhmayaan taliye Sheekh Macabe ayaa la waayay 26kii bisha la soo dhaafay August kolkaas oo dagaal uu ku qabsaday deegaanka Coysweyne oo hoostaga degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud waxa halka markii dagaalku uu ka dhacay kadib la waayay meel uu jaani cirib dhigay waxaana ka soo baxayay warar kala duwan oo iskhilaafsan hadaba ehelku waxa ay dalbadeen in war cad laga helo maqnaanshiyaha sargaalkaas oo sheegeen ilaa ay hadda in aysan haynin meel uu jaani cirib dhigay nolol iyo geeri mid ay ku tuhmaan iyaga oo warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda Muqdisho oo leh odayaasha dhaqanka bulshada qeybaha kala duwan iyo sidoo kale caruurtiisa ayaa waxa ay dalbadeen in si degdeg ah u helaan akhbaar saxan oo la xiriirta sargaalkaas oo maqana isla markaana ilaa ay hadda aan lahayn meel uu jaan iyo cirib dhigay warar soo baxayana waxa ay sheegayeen dhowrkii maalmood ee la soo dhaafay in Sheekh Macabe iyo xubno kale oo ka mid ah ciidamada xoogga dalka nolol lagu tuhmayo balse ay suuragal tahay in ay wali go'doon ku jiraan oo ay maqan yihiin Coysweyne dagaal ka dhacay ayaa waxa ka dhashay qasaare kala duwan oo soo gaaray ciidamada dawladda federaalka ee Soomaaliya inkastoo dagaalkaas jab culus lagu gaarsiiyay kooxaha qawaariijta ee al-shabaab taliye Sheekh Macabe ayaa ku suntanaa geesinimo iyo nafurnimo waxa uu qayb lixaad leh ka qaadanayay halganka dalka looga xoreynayo kooxaha qawaariijta al-shabaab ehelku waxa ay sheegeen ilaa ay hadda inaysan haynin nolol iyo geeri war rasmi ah oo ay ku qancaansa ay ka helin dawladda uu majaraha u hayo madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud subax sabti bishana 26 ay tahay bishii 8aad dadka ugu war dambeysay howlgal qaranuna ku jiray marka dawladda federaalka waxaan ka codsaynaa mar labaad iyo mar saddexaad in generaalkii warkiisa la helo dawladuna waa ku kalsoonahay oo waa ognahay inay hadda daraasho qaban waa ognahay waa ku kalsoonahay waa dawladayni laakiin waxaan la aamusi weynay oo aan mataqaana aan dul qaada weynay intaas aamusnaantaas ayaan ka dul qaan mataqaana dhibtoon xoogay aan dul qaada weynay marka waxaan dawladda federaalka ka codsanaynaa generaalkii warkiisa in la helo waa nool yahay waana kan waa rabnaa waa dhintay meydkiisina waa kan waa rabnaa hadda wax kale oo aan aniga mataqaana aan rajayhayna ma jiraan ilaahay wax walba asaga mataqaana gafuur raxiim asaga aho raxmadiisana asagaan rabnaa marka ninka noloshiisana aad ugu faraxsanahay oo rabnaa aad u rajayhayna insha Allah hadii ilaahay yiraaho hadii dawladdu ay mataqaana ila sirdoon leh oo taliye xoogaa joogo talina basuuliya joogo madaxweynaha qaranka hadda maanta heegan oo furumta hore joogay waxaan ka sugaynaa warbixin sida ugu dhaqsiyaha badan hadii ilaahay yiraaho ayaan madaxweynaha waxaan ka sugaynaa asaa taliye xooga asagana hadda furunta joogay generaal Sheekh Macabe ka sugaynaa warbixintiisi oo degdega generaalka waa kan waa nool yahay meel hebel oo howlgal ka wada ama meel hebel oo mataqaana ku go'doonsan yahay waa ku maqanahay amba ninka mataqaana generaalka waa dhintay waana noocaan sugu hayna aad iyo aad u maasantiin qaraabada meeshan isugu timiday
say isugu timidayay arrintaas ay uga tiirayeensan tahay oo ninka noloshiisii iyo mataqaanaa iyo raqdiisiiba labada ay isugu hayso haddana waxaan leeyahay dulqaadka la muujiyo ninka downool yahna waa helaynaa hadduu dhintana raqdiisaan dowladda aan wax walba uga fadhinaa insha allah intaasna qaraabadaan ka codsayaa annagu dowladdu inay adeejisay shaqo qaran oo ku jiraan ognahay hadday qadiru timaadna dad ku sabraannahay haddii naxawahay uu nool yahana inaan aragno aan ku faraxno aan naxawahay aan ogaanan rabnaa dadka biran uga tagnana ma hayno biran u sugnana ma hayno korneyl shaah macbi soomaaliyo dhammaana sida wada ah dowladda naftirkeeda haddii ay wax qarinaysay waxaan rabnaa inay waxay qarinaysa noo sheegto qadirta waa naqaan haddii uu nool yahay iyo haddii uu maaragtay qadiro ku timidba annagu wax kasta waa ku sabarsannahay waxaan rabnaa marka inaynana sii silcin war degdega ay dowladduna soo siiso si aan uga amba qaadno saasaan codsanaynaa ahalkiyaan nahay taliya shaah macaabi waa ku maqanay goob dagaal 2 maalin socday kadib waxa uu dagaal kula wareegay deegaanka Coosweyne maalintii Isniinta ahayd 22 bishii 8 2023 halkaas dhanka kale daawadayaal dagaal culus ayaa ka dhacay deegaanada Galgaduud waxaana al-shabaab looga saaray halkaas deegaanadii ay gacanta ku hayeen oo markaasi in muddo ah dadka ay ku dhibaateynayeen ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka ayaa la wareegay sidoo kale deegaano cusub oo dhaca xadka Galgaduud iyo Shabeelle Dhexe ciidamada huwanta ayaa si buuxda u la wareegay gacan ku haynta deegaanka Ceel Garas oo Galgaduud dhaca kadib markii ay halkaas saacado isku hor fadhiyeen kooxda al-shabaab iyo ciidamada dowladda ciidanka ayaa halkaa ka wada baaritaano iyaga oo howlgalka inta uu socday la kulmay weerar jidgal ah iyo miinooyin sidoo kale ciidamada dowladda iyo kuwa deegaanka ayaa isla maanta la wareegay gacan ku haynta deegaanada Cadcaday iyo Cadaan Lixay oo hoostaga degmada Roynirgood ee Shabeelle Dhexe ciidamada isgarabsanaya ayaa sidan oo kale si nabad ah u la wareegay gacan ku haynta deegaanadaas kuwaas oo la sheegay inay isaga baxeen dagaalyahanadii shabaabka kadib markii ay ka war heleen gulufka ku soo wajahan howlgallada lagu qabtay deegaanadan ay ciidamadu la wareegeen ayaa ku soo aadayay iyada oo dowladdu ay wado abaabulkii ugu dambeeyay ee dagaal oo si buuxda looga xureynayo kooxda al-shabaab deegaanada ay ku sugan yihiin ama gacanta ay ku hayaan dhanka kale mudanayaal ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo mas'uuliyiin kale waxa ay ku geerideen qarax ka dhacay deegaan shabaab laga saaray isla maanta warar kala duwan ayaa ka soo baxaya khasaaraha ka dhashay qarax culus oo ka dhacay deegaanka Ceel Garas ee Galgaduud dhaca halka oo laga saaray maleeshiyaadka al-shabaab qaraxa oo ahaa miino ayaa waxaa lagu waramayaa in loo dhigay xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Galmudug oo ku socdaalaya halkaas waxaana ka dhashay dhimasho iyo dhaawac wararka ayaa sheegaya in baabuurka la qarxiyay ay la socdeen xildhibaan Maxamed Maxamuud oo ka tirsan baarlamaanka Galmudug iyo Cabdullaahi Ibraahim oo isna ka mid ah golaha deegaanka ee degmada Dhuusamareeb labada xildhibaan ayaa isla goobta ku geeriyooday kadib markii ay la kacday miinada loo dhigay baabuurka ay saarnaayeen sidoo kale waxaa weerarkan khasaare uu ka soo gaaray askar kale oo ilaalo u ahayd labada xildhibaan ee geeriyootay ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa gacanta ku haya deegaanadii lagu dagaalamay daawade halkaad nagala socoto waa barta aan ku leenahay YouTube-ka ee Nuxurka Wararka haddii aad nagu cusub tahay nagu soo biir